وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. محاضرة وعظمة الرسول عليه الصلاة والسلام أما ويند النبي عليه الصلاة والسلام waxaan u dooranay inaan mowduucan ka hadallo iyadoo wakhtigan dambe ay badan tahay wax ka sheega nebiga calayhi salaatu wasalaam dhulalka reer galbeedka iyadoo marmarsiiya laga dhigtay xorriyat alqowl u aragnana inaanay wax saxa ahayn waayo nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam waxaan u aragnaa inuu yahay acdamu shakhsiya fii taariikhi اlbashariya. aadam intuu dhalay calayhi الsalaam ilaa qiyaamaha laga gaadhayo inuu yahay acdam insaan dhulkan ku kor socda. maqaayiis kasta oo lagu qiimeeyo marka aan leenahay nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam waa acdam insaan, qur'aanka iyo sunnadu way tilmaamayaan. waxgaradka bini aadamkiina wuu tilmaamayaa. sidaa awgeed waxaanu arkayaa inay tahay dadka muslimiinta ah ee siiba yurub jooga inay ka mid tahay waxyaabaha looga fadhiyo inay nebigooda calayhi الsalaaةu wasalaam difaacaan, oo qaabka u roonay loo difaacayana ay ka mid tahay in weynidiisa la soo bandhigoo la muujiyo. wakhtiga oo kooban daraaddeed waxaan isku dayayaa markaa inaan koobo. dhan markaynu eegno koowaad diin ahaan bini aadamka hormoodkiisu waa rususha iyo nebiyada. bini aadamka oo dhan marka la ysku daro dadka koowaad ee hormuudka u ahi waa dadkii rabbi doortay. ilaahay wuxuu leeyay wakullan fadalnaa cala alcaalamiin intuu soo tiriyo 18 nebi oo qur-aanka fii suurati alancaam ku soo arooray. marka 18 nebi ilaahay magac dhabo ayuu odhanaya wakullan fadalnaa cala alcaalamiin, dhammaantood dunidan waannu ka doorannay baa ilahay leeya, waa ka fadil yeelle, waa ka kor yeelle. ambiyadu waxay yihiin allahu aclamu xayثu yajcalu risaalatah baa ilaahay yidhi. ilaahay isagaa og meesha uu risaaladiisa dhigayo cidda mudan. allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas. ilaahay dadka wuxuu ka doortaa baa rabbi tilmaamayaa, malaa'igtana rusul baa laga doortaa. ergey loo dhiibo ilaahay subxaana wa tacaala risaaladiisa ama warkiisa si uu bini aadamka u gaadhsiiyo. bini aadamkayna ilaahay rusul buu ka doortaa. nebiyullaahi muxamedna ilaahay baa qur-aanka inoo tilmaamaya inuu yahay muxammadun rasuulullah, alle rasuulkii inuu yahay. sidaa daraaddeed ayuha alxibba, risaaladu in ilaahay basharkao dhan intuu eego qof ka mida uu doorto oo uu doorto kuu la hadlaya inuu noqday risaaladiisa u dhiibayo ee bini aadamka kala gaadhsiinaya, laba wax bay wadatay. dhan waa tashriif, waa maamuus iyo qadarin tilmaamaysa qofkani bini aadamka kale inuu ka mudan yahay. dhanna waa takliif, waa xil iyo mas'uuliyad la saarayo. idan rusushu labadaba waa wadayiin. dhan waa mukallifiinoo takliif baa la saarayaa bini aadamkan inay gaadhsiiyaan risaaladii alle soo diray. dhanna waa tashriif, waa maamuus la maamuusayo ilaahay intuu khalqiga eegay inuu iyaga ka dhex doortay, waa maamuus. waxa ugu filan nebi moxamed markaa maamuus calayhi salaatu wasalaam
إن إلهي تلمام يملأ إلى أعلى إن يساق صليان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله يا ملائكتي سبحان ربي لي سبحانه وتعالى وحيكون صلينا يا النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي الصلاة ديسو وأن حريستيسي ملائكتنا والدعاء يا أمان مؤمنين تنوح على ليد الناس دوك لك عليا إذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام عرك صاروا كما مسيه دولك كركي سنو كما مسيه وأنا قفك إلى هاي دورتي أو دورتين الرسول نغضه هدان أخرياء آيات كقرآن أي حادثة كسا أروري مسألة سئاد بيوتر بدين بل وحا تربضا نصوص التلمام سين الرسول شكلك مدنيه marka tabaqada bini aadamka kale la iskala yimaado ee la yimaado tabaqada nabiyada iyo rususha qura tabaqada dhexdeeda inuu ka mudan yahay oo ilaahay si gaar ah isaga u tilmaamay ay nusuustu tilmaamaysaa waa ka xadiiث al-isra wal mi'raj nabiga alayhi salatu wassalam habeenkii laga dheelmiyay ama laga kaxeeyay laga gudiyay مكة بيت المقدس اللي جاي براق بهلا يدهدا الله صار مركو النبي يقول ربي إنه فوله أي دغدغاق سميس دبتنا جبريل باو حكيري ما يحملك على هذا يسقط دابدا الله الله يا محاكو حنبار يا وحرنات سميسه فوالله ما ركبك أحد قط أكرم على الله منه قف إلهي أكتيس كجا شرف بدني ولقي كم فولنه محل دغدغاق سابو كيري جبريل فرفض عرقا بو حديثك تلمامية دابدي انت يستاكتو هي النغطي أي ديد الدريرتي إذا النبي عليه الصلاة والسلام إلهي قرآن كوكت المامية عقل جيسا فكرة ديسا أركت ديسا موقال كيسا قرآن بدن بدن أو تلمام يجرى لكن وقتها كوبان مسألة دا وان سو كوبية أدي وقتها حاجة دنبان وحكا قاري كربان تلمامي دونا وحان ربا دادك إنو لنو لين إنو لو داقنا النبي محمد شرفتي دي سيا مدنانتيس taasi waxay keensanaysaa markaa inaynu tilmaamno bini aadamku muxuu mudnaan u yaqaanaa qofka la weyneeya waa qofka maxay ah bini aadamku majaalaat insaaniya baa jira majaalaat bini aadamka lagu maamuuso ha noqoto naxariistiisa ha noqoto geesinimadiisa ha noqoto sabirkiisa ha noqoto dulqaadkiisa ha noqoto deeq iyo gacan furaantiisa ha noqoto ballanka iyo oofinteeda ha noqoto cafwiga iyo u dhaafka uu dadka u dhaafo uu xugeystay iyagu maanta waxay sheegayaan waa irhaabi laakiin taariikhdu waxay ka markhaati kacday weligii cid wax gaadhsiisay inaanu kaba argoosanin iyadoo la isku dayay wax walba si kasta in loo dilo بني آدم وحكستو وحكو قيمة يبين لنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام هرمود بكيه إلهي يا أمانة يا مركا وحلي ورفعنا لك ذكرك مقعاق يا ماموسكاق قربان وقاضي با إلهي لي إلهي وحكوت المامي بني آدم كوحا بقنا أخلاق بني آدم نمي الله يسغفانه وإنك لعلى خلق عظيم با إلهي لي هذا بقى أيها الإخوة نبي محمد عليه الصلاة والسلام أنبياء إيه فلاسفة ودد لبونبونيو محال بونبونيا أركتي أما نظريات أما فكرة دي دوني دا كينين أنبياء إيه فلاسفة waxay ku kala gadisayeen koowaad waxa kamid ah فلاسفة waa dad caqliga qura ka fakara anbiyadu laakiin waa dad amaliya diin cusub iyo aragtidii ilaahay u soo dhiibay waa sidaan
waxa u dheer inay yihiin dad more practical ah dad qiyaado leh leadership leh oo akhlaaq leh oo dhaqan leh oo wax walba kaga gedisan bini'aadamtinimada sida awgeed nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam waxaynu odhan karnaa waa rajul fii muqaabili jamiici الrijaal waa qof hormood u ah bashariyadoo dhan oo la hordhigi karo bini'aadamka weliba intaa waxaynu ku daraynaa wuxuu nabigu kaga gedisan yahay calayhi salaatu wasalaam bashariyada inteeda kale isaga wax u qarsoon baan jirin maxaan uga jeedaa bini'aadamka la maamuuso had iyo goor qayb noloshiisa ka mida si fiican looga warhayaa laga tilmaamaa maalan nin dagaalyahanoo geesiya haddii la soo qabto bini'aadamku uu dagaalyahannimo ku maamuuso inta badan taariikhda laga hayoo dhamme waxay u badan tahay dagaalyahannimada laakiin taariikhdiisa kale ee bini'aadamnimo oo dhan lama magacaabo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam taariikhdiisu wax maqani ma jiraan waxa qoran wuxuu cuni jiray wuxuu xidhan jiray musqusha siduu u geli jiray musqusha markuu gelaya labada adinkuu horraysiin jiray musqusha markuu ku jiro gacantuu isticmaali jiray ee wax iskaga maydhi jiray yacni qof noloshiisa wax qarsoonay aanay ku jirin waxa qoran kabihiisu intay leekaayeen cidhibta iyo xagga hore midkay u buuraayeen indhal inay lahaayeen iyo inaanay lahayn kabtu inay dhogor lahayd iyo inaanay dhogor lahayn saddexda qaybooda kabtu u qaybsanto dhexda iyo xagga hore iyo xagga dambe mid waliba inta ay leegtay nebi moxamed way qorantay calayhi salaatu wasalaam waxa qoran wuxuu maro qaatay midabkay lahaayeen waxa qoran wuxuu cunno cunay waxa qoran wuxuu meel istaagay waxa qoran wuxuu dagaal galay waxa qoran wuxuu qof bini'aadama la hadlay waxa qoran wuxuu cibaadaystay waxa qoran wuxuu ummad hoggaamiyey waxa qoran noloshiisa oo dhan baa makshuufa dabeetana waxaa la leeyahay waa taa taariikhdii nebi maxamede bal meel ceeb le ka soo saara qof aan taariikhdiisa waxbaba qarsoonayn ee wax wal oo noloshiisa ka midiba uu ritan yahay oo la tilmaamayo meel ceeba ka soo saara walidaalika baa taariikhyahankii ingiriis ee toynby arnold toynby waa qarnigii labaatanaad baan odhan karaa taariikhyahankii ugu weynaaye reer galbeed lahaayeen waa ninkan leh taariikh alxadaaraat ilaa 27 xadaaro oo bini'aadamka soo maray buu taariikhdooda u qoray calaa kulli xaal waa mustashriqiinta ugu waaweyn buu ahaa toynby ayaa wuxuu leeyahay kuwa raba inay darsaan taariikhdii nebi maxamedow waxaa helaysaan buu leeyahay سيجدون أمامهم من الأسفار ما لا يتوافر مثله للباحثين في حياة أي نبي من الأنبياء وهل سنبولي تاريخ النبي محمد كتب نبا هلي سنبولي وأيضا ولغين كهلي كرين نبي كلو تاريخ ذا كم دون تعلق هياني تشرين إنني أدعو العالم بمركالي دوني دا وحان ويريا إن مبدأ ولا النمضة إيا السنانطة laga qaata buu leeyahay islaamka ayaan dunida ugu yeedhaya waayo buu leeyahay caqiidatu tawxiid caqiidada ilaaha kaliga sheegaysa ee uu islaamku la yimi waa arwac alamthila cala fikra tawxiid alcaalam waa tusaalaha ugu fiican ee bini'aadam dunida ku nool lagu midayn kara buu tilmaamaya waina fii biqaa'i alislaami amalan lilcaalami kulli waaridda uu islaamku waaraana rajay u tahay buu leeyahay dunidoo dhan maanta iclaamka buuqa wuxuu ina leeyahay islaamku waa tararka dunida socanka maaha aqoon-yahankoodii taariikhda baadhayna wuxuu leeyahay waaritaanka islaamku wuxuu amal u yahay wuxuu rajo u yahay buu tilmaamaya bini'aadamnimada waxa nebi maxamed muslim ka sheegay waxaan rabaa inaan ka tago waayo ummad waliba geesigeeda iyo batalkeeda iyo nebigeeda dee waa ammaanataa waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan markaasi dee waa dadkii rumaysnaa oo ammaanaya waxaan isku dayayaa waxa aan soo qaataa inay u bataan kadib baan qur-aanka dib ugu noqon haddii alla yidhaahdo laakiin waxaan isku dayayaa waxaan soo qaadanayaa inuu u bato waxay aqoon-yahankoodu qoreen weliba waxaan horraysiin doonaa kuwa kriteeriyada qoray
aqoon-yahanka qaar reer galbeedka ah oo nebi maxamed wax ka qoray noloshiisa qayb ka mida intay qoreen bay ammaaneen ama tacaabiir duuduuba bay ka sheegeen aqoon-yahanka qaarna iyagoo bini aadamka qiimaynayay waxay dejiyeen marka hore kriteeriya wax lagu qiimeeyo yacnii qofka bini aadamka aynu odhan karno waa qaa'id ama waa hoggaamiye ama waa mudan yahay waa qofka maxay qabtay bay marka hore isweydiiyeen dabeetana kriteeriyay qoreen qofku waa inuu sifadaa iyo sifadaa iyo sifadaa iyo sifadaa yeeshaa markay kriteeriyada dhammeeyeen kadib ayay waxay yidhahdeen bini aadamka aan ku tabaqna haddaba yaa leh sifooyinkaa inta kriteeriyada qortay aan wax ka soo qaadaya dhammaantood waxay tilmaamayaan nebi moxamed inuu yahay kuwa ugu mudane kriteeriyada bini aadamka lagu qiimayn kara wata aan dhowr qof markaa soo qaado waxaan idiin soo qaadi doonaa lamartine alfonso lamartine iyo messerman julius messerman iyo michael hart iyo professor ro krishna waa afar dunida ka kala tirsan mid waa hindi midna waa yahuudi maraykan iyo reer yurub waa dad kala gedisan waxay isweydiiyeen marka koowaad bini aadamka maxaa lagu qiimeeyaa marka la qiimaynayo la maamusayo laleeyahay qofkani waa halyeey maxaa lagu qiimeeyaa cumuuman bini aadamku wuxuu yidhaahdaa saddex shay baa wax lagu qiimeeyaa ama alcadama weynida bay leeyihin qof leeyahay saddex shay baa lagu qiimayn karaa kow biاطibaaci wاlakhlaaqi wاlmazaaya shakhsiya waxaa lagu qiimayn karaa bay leeyihin sifaadka bini aadamnimo ee waa geesi waa deeqsi waa caynka yacni sifaadka qofka bini aadamka insaaniyadu ay leedahay waa lagu qiimayn karaa bay yidhaahdaan waxaa kaloo bini aadamka lagu qiimeeyaa bay yidhaahdaan injaasaadka alacmaal alcadiima waxqabadka ummad buu badbaadiyey waxaasuu qabtay waxaasuu keenay waxqabadkiisa waa lagu qiimayn karaa waxa saddexaad ee bini aadamka lagu qiimeeyaa waxa weeyaan bay yidhahdeen raadka uu bini aadamnimada kaga tegey intee qarni buu raadeeyey ma bulshadii uu la noolaa iyo qarnigii uu noolaayo qura qof raadayn kule buu ahaa mise taariikhda bini aadamka ee soo jireenka aan qof ku leh raadayn waa aahaar waa saddex qaybood oo wax loo qiimayn kara bay leeyihin in dhaqanka iyo akhlaaqda iyo miisaadka insaaniga lagu qiimeeyo in waxqabadka iyo acmaasha ka soo fushay lagu qiimeeyo iyo in raadku bini aadamnimada kaga tegey lagu qiimeeyo saddexda kaad ku qiimaysa bay leeyihin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa number one waxay yidhaahdaan cadamada marka la qiimaynayo dadka badh qoom buu weynida u yahay laakiin waxaa laga yaabaa qadarka uu kuwan wax u taray kuwo kalena inuu dhibay maalan dagaalyahannada nin baa dagaalyahannimo lagu qiimeeyey dee qoomkiisa wuu u guuleeyey laakiin qaar kale uu jebiyey baa jira bini aadamka o dhan wax ma wada tarine qaarna wuu u hiiliyey qaarna wuu ka hiiliyey waxaa jira bay dhahaan bini aadamnimada marka la qiimaynayo inay maxalli tahay raadayntiisa ama waxqabadkiisu inuu gobol ku kooban yahay qowmiyad min alqowmiyat inuu wax taray iyo inay tahay international adduunka o dhan inuu wax taray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxay leeyihin biayi miqyaas aad wax ku qiimayso bashariyada dhammaanteed buu wax taray sida awgeed haddii akhlaaq iyo dhaqan la rabo bay leeyihin waa qof taariikhdu ay tilmaamayso inuu mutawaadic ahaa oo geesi ahaa dagaalyahan ahaa wax bixin jiray dulqaad badnaa sabir badnaa waxa sifaad qof bini aadama lagu tilmaamoo dhan saadiq ahaa iyo runsheeg badnaa ballan oofin badnaa waxa sifaad qof bini aadama lagu maamuusa bay leeyihin waa looga markhaati inuu lahaa hadday tahay raadayn waxay leeyihin caalamka ilaa maantay taallaa raadayntiisii oo wakhtigu nebi moxamed yimi calayhi salaatu wasalaam wakhti aan laa xuquuqulinsaan walaa xuquuqulbini aadam walaa wax jira aanay jirin bay ahayd
markuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xajatul wadaac uu tilmaamayay bini aadamka iyo maamusnimadiisa iyo xurmada uu leeyahay aahaartu ka tegay bay leeyihiin waa ta abuurtay xadaaradan dee islaamiga dhammaanteed iyo dadka muslimiin ee dunida soo jiro o dhan sida awgeed ay miqyaas wax lagu qiimeeyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa number one walidalik baa waxa uu qoray Will Durant waxaan filayaa inuu yahay laa adri agnostic yani kuwan aan diimahaba rumaysanayn atheist maaha waa agnostic waa laa adri yani inuu jiro iyo inaanu jirin ma kala ogi anigu wax ma ogi baa la yidhaahdaa kaasi agnostiga ahi wuxuu leeyahay laba kitaabo waaweyn oo caano mid waliba dhowr iyo 10 volume yahay mid waa story of civilization تاريخ الحضارة الإنسانية منه story of philosophy تاريخ الفلسفة وعلى كتابه فوليوم إسا كتاب كيسن لا يدهد تاريخ الحضارة أما story of civilization مركا وكور رمي تاريخ دي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحورنا وإذا حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس قلنا إن محمدا كان أعظم عظماء التاريخ فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاق للشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجدب الصحراء وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحا لم يدانيه فيه أي مصلح آخر في التاريخ وحوليه هدين وينك ورنا يقف بن آدم ويندي وإنه قيمين الراتك وبني آدم ككجتجي نبي محمد وحي هيبولي كان أعظم عظماء التاريخ دتك وجوا وين التاريخ ضلت المام كود وجسي وين بولي دتك وجوا وين عظماء التاريخ مركا إنه مال صلاة دقنه عظماء ضبو عظيم كود يي أيوك وجوا وين هيبوت المامية ويبو يري الشعب كنا الدول كلول oo aan wax dhaqana wadanin carabtii jaahiliyadu tilmaamaya ayuu intuu nolosha ka saaray wuxuu gaadhsiiyay buu leeyahay nolol bini aadamku tuu ku rayreeyo nololaha ugu sarreeya kamida buu gaadhsiiyay waxaan jeclahay inaan u soo noqdo dadyawa kale wararkooda laakiin bal nimankii kriteeriyada qaatay aan iyaga warkooda horaysiiyo waxa uu yidhi Michael Hart aan soo qaato markood Michael Hart waa nin Maraykan ah asal ahaan Yahuudiya NASA researcher ka ahaan jiray professor of physics ahaan jiray jaamacadka takhasusaad badan leh waa maths waa physics waa astrophysics waa computer science iyo law shanta subject ba takhasus buu ku leeyahay shanta degree buu ku sitaa waa professor jaamacadeed buugaag buu leeyahay uu caansan yahay buugga la yidhaahdo The 100 boqolka buugga la yidhaahdo buuggan 100 waxa uu ku tilmaamayaa boqolka qof ee bini aadamka ugu raadaynta badan the most influential persons in the history of mankind ayuu tilmaamayaa boqolka qof ee ugu raadaynta badan bini aadamka waa buug 500,000 copy laga iibiyey ilaa 15 luqana ku tarjuman ninkan odagii markuu masaladan ka warramayo isagu markuu isa sifaynayo wuxuu isku sifeeyay inuu yahay Jeffersonian liberal Jefferson waa madaxdii soo martay Maraykanka nin ka mid ah nin liberal isku sifaynaya laakiin qolada isaga ridida markay sifaynayaan waxay ku sifaynayaan inuu yahay conservative iyo racial separatist bay leeyihiin waa nin muxaafid oo infisaali cunsuriya bay odhanayaan iyagu nin yahuudiya oo dadka bar cunsurinimo ku sheegayaan oo Maraykan u dhashay oo buug qoraya oo buugga audience-ku uu qoraya wax ka iibinaya aanay carab ahayn ay yihiin dadka afka Ingiriisiga ku hadla ayaa buug qoray yani waa niman xidhiidh ka dhaxaynin isaga iyo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa buug qoray buugga uu qorayo wuxuu leeyahay waxaan ka warramayaa boqolka qof ee bini aadamka ugu raadaynta badan
saddex shardi baanan u dhigay shardiga koowaad qofkani waa inuu qof xaqiiqi yahay buu tilmaamayaa yacni xaqiiqiga maxaa looga jeedaa waxay leeyihin taariikhda bini aadamka dad baa iska jira ustuura loo malaynayo iminka xakiimu siin oo kale lawtso nin la yidhaahdaa jiro Chinese ay xikam ka soo naqliyaan waa sida cigaal shidaadkeennoo kale qof jiray ma aha mise ma ahayn ayay ku muransan yihiin marka wuxuu leeyahay qofku waa inuu horta aanu noqonin dadka aan laba garanaynin qof xaqiiqiyo la garanayo waa inuu yahay waa marka labaad buu yidhi waa inuu noqdaa qof raad badan nolosha kaga tegey waxaan uga jeedaa buu yidhi xataa raadku ha xumaado ama ha samaado walidaalika dadka uu boqolka uu leeyahay bini aadamka ugu raadaynta badnaa Hitler baa ugu jira Hitler raadayntu dunida raadeeyay waa maxay dhib buu ku raadeeyay de wuxuu ku caanbaxay mushkilad marka wuxuu leeyahay bal adigu bini aadam waxa doonta ku raadee ama waali ka warkeen ama wanaag ka warkeen boqolka qof ee bini aadam ugu raadayn badan ma rabaa waxa kale oo uu tilmaamay inuu noqdo qofkaasi أثرkiisu أثر إقليمية inaanu noqonin inuu noqdo maxay أثر caalamiya dunidoo dhan inuu raad ku samayn karo buuggiisa markuu qorayay markaa wuxuu yidhi saddexdaa qiimaynood marka aan ku qiimeeyo qofka bini aadamkee ugu mudan basharka dunida soo maray oo dhammi waa nebi maxamed buu leeyahay calayhi الsalaatu wasalaam number 1 waxayaa buu yidhi nebi maxamed number 2giisa ma taqaanin waa Sir Isaac Newton ninkii physics-ka number 3giisa ma garanaysaa waa ciise nebiyullaahi ciise isagoo yuhuudiya muuse muxuu ka dhigay nebi muuse nambarka 4aad buu ugu jiraa boqolka qof ee dunida raadaynta ku leh isagu nebigiisu raacsiisnaa wuxuu ka dhigay maxay number 40 buu ku tilmaamaya ciisana nebi ciisana wuxuu ku tilmaamaya maxay number 3 su'aal baa isweydiin le markaa tirakoobyada maanta la hayo ee dunidu ay sheegato masiixiyada inta sheegata ka badnayd baa la leeyahay inta sheegata muslimka waay uu ciise number 3 uga dhigay ayaa la weydiiyey maxaad ciise yacni wan u geyn weydi waxa uu tilmaamayaa ciise waxa aan wanka u geyn waayey waa hal shay wuxuu leeyahay diinta nebi ciise qaybta akhlaaqiyaadka iyo waxaa ku saabsan raadaynteeda nebi ciise iska leh ama caqaa'idda maanta kiristanku haysta buu leeyahay bolos baa kaga badan maxay ciise marka waa diin aan u qaybinaya buu leeyahay laba qof inay raadaynteeda leeyihiin qaybteeda caqaa'idda bolos baa ah buu leeyahay qofka koowaad ee raadaynta ku leh dee tahliidka ninka ku waday weeyaan saddexdan ilaahay isku ilaaha ninka soo dhex geliyay diinta tan weeyaan waa gruubka saa awgeed buu leeyahay ciise aniga agtayda wuxuu ka yahay maxay number 3 buu tilmaamaya ama buu leeyahay moxamed calayhi salaatu wasalaam isagu keligii ayuu hadday caqiido tahay iyo hadday akhlaaq tahay iyo hadday dowladnimo tahay iyo hadday waxaba tahay islaamka keligii buu matalaa buu leeyahay keligii ayuu yahay markaan bashariyadoo dhan eega buu leeyahay taariikhdii reer nebi aadam oo dhan markaan eego qofka ugu mudan ee ugu weyn ee raad lihi waa nebi maxamed buu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ma irhaabi baa ugu raad badnaan lahaa dunida intuu soo maro mise qof la caayo la yidhaahdo waa dumar buu jecel yahay ama caynkan buu sameeya ama kan buu samaynaya ama caynkan samayn kari lahaa may waxa weeyaan innagaa gabnay taariikhdii islaamiga ahayd markaynu inagu soo bandhigi weynay iyagu inoo soo bandhigeen khuraafaadkoodii aneego axmed diidaad baa kitaabkiisan la yidhaahdo uu nebi maxamed weynidiisa kaga warramaya wuxuu tilmaamaya jariidadan timeska la yidhaahdo time la yidhaahdo 15 July 1974 soo baxday buu leeyahay ayaa waxay coverka sare ka dhigatay who were history's great leaders liidarrada ugu waaweyn dunida ee taariikhda soo maray waa kuwama
dabeetana jariidada inteeda ugu badan waa maqaallo rag la weydiiyey su'aasha ah yaa u mudnaa hogaamiye dunida soo mara dadka la weydiiyey jariidadana weydiisay dad doora bay ahaayeen oo kala nooc ah laakiin dhammaantood jawaabahay bixiyeen midnaba ma ignore garayn buu leeyahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mid kasta oo ka warramay dadkii ugu waaweynaayee dunida soo maray ee jariidadu qortay nin kastoo la weydiiyey liiskiisa waa ku jiraa buu leeyahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aan qaar ka mida soo qaadanno william macnill waa mu'arikh waa taariikhyahan maraykan oo jaamacatu chicago ka tirsan ayaa jariidada maqaal buu ku leeyahay waxa uu leeyahay haddii aynu weynida ku qiimayno qofku inta uu raadeeyey bini aadamka waxa qasab noqonaysa buu yidhi inaynu xusno dadkii bini aadamka ugu raadaynta badnaa nebi ciise iyo buuda iyo muxamed iyo confucius ambiyadan dunida soo martay buu isagu leeyahay diimaha maanta joogay waaweyn ee dunida soo maray ambiyadoodii ala xaddi qowlihi weeyaan soo isagu sheegay ayaa ugu raadayn badan nimanka wax la weydiiyey ee maqaaladan su'aalaha la weydiinaya waxaa ka mid ah nina janan mutaqaacida lieutenant general fariiq buu ahaa mutaqaacid ciidanka maraykan ah james gaffin la yidhaahdo waxaa la weydiiyey yaa ugu mudan qaadadii dunida soo martay kaasi taarikhyahan buu ahaa kanna waa caskari waxa dadkan loo soo qaadanaya waa dad viewga ay wax ka eegayaan ay kala gedisan tahay oo ninka askarigii sibuu dunida u arkaa ninka taarikhyahankiina sibuu u arkaa ninka culumta bini aadamka psychology wax la mida ku takhasusayna si kale u arkaya james gavin waxa la weydiiyey yaa dunida ugu raad badan ee soo maray taariikhda wuxuu yidhi waxaan aniga agtayda waxaan ictibaarinayaa buu yidhi muxamed iyo ciise liilanna waan ku dari karaa buu yidhi isagana inuu ka mid yahay dadkii dunida raadeeyey nimanka jariidadaas wax ka qortay waxaa ka mid ah julius maserman waa yahuudi laakiin waa muxallil nafsi waa psychoanalyst waa muxallil nafsi yani waa psychologyga qolada taxliilaat nafsiya qoladan ka warranta waa isna professor jaamacatu chicagoya waxa la weydiiyey markaa mas'aladatan wuxuu yidhi intaanan mas'aladan ka warramin waxaynu u baahanay bini aadamka weynidiisa macaayir aynu ku qiimayno maxaynu ku qiimaynaa waxaan ku qiimayn karnaa buu yidhi kow qaa'idku inuu yahay saliimu lqiyaada qiyaado toosan oo yacnii qof dadka intuu istiqfaalsado ku shaqaysanayo ku xoogsanaya inaanu ahayne qof qumanoo dadka maslaxadooda ka warramaya inuu noqdo waxaan ku qiimayn karnaa buu yidhi qaa'idku inuu nidaam ijtimaaciya nidaam bulsheed oo bini aadamku uu deganaan iyo xasillooni dareemayo inuu keeno waxaan ku qiimayn karaynaa buu leeyahay qaa'idku inuu mujtamaca u yeelo muctaqad mideeya yacni saddex criteria saddex shay buu keensaday midi waxa weeyaan bulshadiisa inuu homogeneous group ka dhigi karo bulsho afkaarteeda isku dhadhowday ama midaysan laba wuxuu ku tilmaamay nidaamkiisu inuu yahay nidaam bulshadu nabadgelyo iyo deganaansho